munaasabad ballaaran oo qaaraan lacageed lagu guddoonsiinayay guddiga dibudhiska madaarka Burco ayaa maanta lagu qabtay xarunta maamulka gobolka Togdheer. lacagtan lagu wareejinayay guddiga dibudhiska madaarka Burco ayaa waxaa ku deeqday wakaalada biyaha ee magaalada Burco iyadoo gudoomiyaha gobolka Togdheer Cabdi Axmed Aayarna uu goobjoog ka ahaa wareejinta lacagtan ay ku deeqday wakaalada biyaha ee magaalada Burco taasi oo ahayd qaaraan lacageed oo ay ka soo ururisay shaqaalaha wakaalada biyaha ee magaalada Burco iyo guud ahaanba wakaalada. gudoomiyaha gobolka Togdheer Cabdi Axmed Aayar ayaa u mahad celiyay maamulka wakaalada biyaha Burco iyo waliba shaqaalaha wakaalada maadaama ay noqdeen hay'adii ugu horeysay ama hay'adii koobaad ee dawli ah ee gobolka Togdheer ka dhisan ee ka qayb qaadatay dibudhiska madaarka magaalada Burco. xaqiiqatan maanta waxaan isugu nimid shaqaalaha wakaalada biyaha iyo hormuud u noqday shaqaalaha gobolka ka qaybgalka qaaraanka madaarka Burco oo xilwareejin qaaraankii ay iska jireen ku wareejinaya guddiga madaarka aad iyo aad baan uga mahad celinayaa runtii xilkasnimada iyo garashada iyo awood weeyaan ay kaga qayb qaadanayaan dibudhiska madaarka. maareeyaha wakaalada biyaha ee magaalada Burco Ibrahim Jirde oo lacag dhan 9 milyan iyo 300 shilinka Soomaaliland ah ku wareejiyay guddiga dibudhiska madaarka Burco ayaa sheegay in lacagtan ay ka timi shaqaalaha wakaalada oo mushaharkoodii ugu deeqay dibudhiska madaarka magaalada Burco maadaama uu ugu fadhiyo buuri madaarkan hirgelintiisu qiimo weyn guud ahaanba gobolka Togdheer. waxaana naga go'an buuri ka wakaalad ahaan inaanu halkaasi ka sii wadno ka qayb qaadashada duruufaha hadba soo wajaha dibudhiska madaarka magaalada Burco. gudoomiyaha guddiga dibudhiska madaarka Burco Sheekh Cali Mawleeda ayaa isaguna wakaalada biyaha iyo maamulkeedaba ku amaanay sida ay hadiyo goor uga qayb qaadato mashaariicda horumarineed ee gobolkan laga fulinayo isagoo tilmaamay in hay'adani mudan tahay ku dayasho. guddiga dibudhiska madaarka Burco ayaa tan iyo xilliga ay soo bilaabeen shaqada dibudhiska madaarka Burco waxa ay maalinba maalinta ka dambeysay si dardar gelinayeen xudxudasho dhaqaale oo ku wajahan qaybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan kooxo ay ku tuhunsan yihiin dhaqaale mugle oo ka qayb qaadan kara dibudhiska madaarka Burco waxaana ay guddigani xilligan u muuqdaan kuwa dadaalkoodu aanu yarayn in ay madaarkan dhamaystiraan xilligan ku sii siqaya. Cabdi Sattar Sabri TV-ga qaranka Somaliland Burco.